inkastoo ay maamulada Mareykanku isbedelaan isla markaasna ay jiraan gedgadoona siyaasad degaleed, haddana taageerada dhaqaale ee sanadlaha ahi gaar ahaan isfahamkii 3.8 bilyan oo dollar ahaa ee la saxiixa xilligii Obama waa mid udub dhexaad u ah xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil. Galangalku waxa uu sidoo kale door muhiim ah ka qaataa qaabaynta haltabinada ku saabsan colaadda Israa'iil iyo Falastiin. Waxa uu caawiyey in Israa'iil lagu sheego inay tahay xulafad dimuqraadi ah oo ku dhex taalla gobol xasaasi ah, iyadoo la adeegsanayo dadaallo dhinaca warbaahinta ah, madalle cilmi baariseed iyo ololayaal dhinaca xiriirka dadweynaha ah isla markaana indhaha laga qabsanayo ama la dhalan rogayo dhaliilaha ku saabsan ku tacaddiga xuquuqda aadanaha, deegaaminta dhulballaarsiga ah ama howlgallada militari ee ay ka fuliso dhulka Falastiin. Cutubka 3 isdiidooyinka iyo dhaliilaha, xorriyadda hadalka, xorriyadda akadeemiyadda iyo saamaynta siyaasadaha. Galangalka ballaaran ee Israa'iil waxa uu dhaliyay doodo iyo isdiidooyin waaweyn, gaar ahaan markay noqoto dhinaca saamaynta uu ku leeyahay xorriyadda hadalka, xorriyadda akadeemiyadda iyo go'aannada siyaasadda arrimaha dibadda. Dadka dhaliila waxa ay ku doodaan in saamaynta galangalku ay mararka qaar curyaamiso doodda siyaasadeed ee sharciga ah, maadaama dadka dhaliila lagu shaabadeeyo inay yihiin kuwa Israa'iil ama mararka qaarkood Yuhuudda necab.